waxaa jira wax dadka laga qarinayo oo aan loo sheegin dadkii uu quseeyey labada dhinacba bacdamaa heshiiskan waddanka gudihiisa 2 sano dagaalku socday dhul baa la kala qabsaday dhibaato badan baa dhacday kulan waxaana wanaagsan idlahantiin bahdaa wadayaal kusoo dhowaada waraysi khadka taleefankan kula yeelanay saraajahadan oo ka falanqooda arrimaha siyaasadda gaar ahaan Ethiopia waxaana aan ka weydiinay heshiiska TPLF iyo dowladda federaalka Ethiopia isku dhacyo isdiidooyin iyo khilaafyo laga soo sheegaya dhinaca TPLF kulan lagu ballansan yahay inuu ka qabsoomo magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya waxa uu qorshaysan xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo waxa laga yeeli doono dhinaca dowladda Eritrea iyo waxyaabaha fashilin kara heshiiskan waxyaabaha qarsoon ee mugdiga uu ku jiro dhinaca kalena bulshada aan loo soo bandhigin iyo sidoo kale qodobada ilaa iyo xilligani uu ka taagan yahay muranka xoogan ee siraaj bal soo dhawow kulan baa la sheegay inuu ka qabsoomayo magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya oo ay ku kulmayaan saraakiisha labada dhinac ee militariga Ethiopia iyo kuwa Tigreega iyo sidoo kale kooxihii ka soo qayb galay heshiiskan dhinaca dowladda federaalka Ethiopia su'aalo fara badan ayaa kor saaran qodobo ka mid ah heshiiskan waxaad moodaa in si hoose loo qarinayo la doonaynin in aqoon-yahanka iyo bulshada kala duwan ee dalkani loo soo bandhigo sidoo kale dhinaca TPLF khilaafyo ayaa laga soo sheegayaa iyo in ay madaxa isku jiraan dowladda Eritrea ilaa hadda waddanka ma aysan bixin IMF waxaa la sheegay in qorshihii ay waday ay wax bedel ka samaysay ama sidoo kale in ay lacagaha Ethiopia u soo dayn doonto bal markaad soo koobto xaaladda dalka Ethiopia iyo sidoo kale heshiiskan waxa qarsoon kulamada Nairobi IMF iyo waxay samayn doonto bal waxaan rabnaa inaad si faahfaahsan bulshada Soomaaliyeed ugu bayaamiso si ay u fahmaan xaaladda guud ee dalka Ethiopia uu socdo bismillaahir rahmaanir rahiim wa su'aalo fiican Axmedow runtii dadku la yaab ma laha inay su'aalahan dib u soo celceliyaan oo ay isweydiiyaan oo inay isdhahdaan hal la heshiiyey maxaa lagu heshiiyey marka ay dusha eegaan wax badan oo lagu heshiiyey oo xaaladda taalla la garab dhigi karo oo jira ma jiro guud ahaanba markaa Soomaalidu waxay tidhaahdaa umuliso iyo nin reer u weyn midna sida uu wax u arkay uma sheego xaaladaha kale aan ku soo noqonay laakiin inta yar hordhaca waxaan jeclahay marka hore dadku maadaama su'aashan ay soo noqnoqotay inta karaankeena si aan uga qancino macluumaad badan baan soo eegay xiriirada kala duwan waan sameeyay marka guud ahaan waxaa jira wax dadka laga qarinayo oo aan loo sheegin dadkii uu quseeyey labada dhinacba bacdamaa heshiiskan waddanka gudihiisa 2 sano dagaalku socday dhul baa la kala qabsaday dhibaato badan baa dhacday gudaha waddanka markaa meelo badan oo aad looga soo dhaweynayn baa jirta marka heshiiskii on wali dhicin implementationkiisi waxaad moodaa in lagu dhex asturayo su'aasha dadku ay isweydiinayaan oo oranaysa siduu u fulayaa maxaa ka horeeyay marka hore ay ahayd inuu dhaco labada qoloba inay tixgelinayso dadkii audience-ga u ahaa oo ay ahayd in wax u sheegaan oo qanciyaanna sababo jira awood in wax loogu soo bandhigi karaynin waxay ahayd meesha inay ka muuqato ciidamada Eritrea inay ka baxaan kama muuqato waxay ahayd meesha inay ka muuqato Tigray TPLF heshiiska waxay ku qaadatay dhulkoodii in loo celiyo qodobada noocaas maadaama oo heshiiskii on dhicin oo implementationkii lagu jiraba ay waxa sii beeri karaan waxaad moodaa in laga ilaaliyay oo lagu lifaaqay qodobka si duuduuban dastuurka oranaya waxaad moodaa marka inay hareysay haddana erey kale oo xagga Tigray way dhibsanayaan oo la leeyahay hubka dhigid taasoo markaa iyadana si official dawladii dadkii matalaya ayna ilaa hadda u soo fadhiisanin goobta oo mataqaana qaabka u dhacaysa iyo faahfaahin fara badan iyo way su'aalahaas oo dhan marka dadku isweydiinayaan waxa kalifaya qaabka ay wax u socdaan guud ahaanba wada hadalkan waa mid wax badan la qariyay waa mid xaqiiqda jirta uu u fulay la qariyay marka wada hadalku waa mid wali sii socdo horta mana soo afjarmin guddigii wada hadalka uga qayb gashay TPLF Nairobi bay joogaan wada hadalku markaa wali safaaradda Mareykanka ayuu implementationkiisu ka sii socon doonaa loo isku weydiin doonaa qaabka uu u filayo labada taliye ciidan yaana dhihina mataqaana taliyaha ciidanka Ethiopia iyo kii TDF ta iyaga laftoodu Kenya rajeynay inay bari ay ku kulmaan aanu soo noqdo markaa inaan analyze garayno oo su'aalahan dadkan ka qancino waxa update-ka horta isla arintan u la xiriira maanta aan ka hadalno wax yar intaana u soo noqonin caqabadaha iyo waxa hor yaalla iyo sida u dhici karto su'aalaha qaarkood maanta war kooban buu soo saaray TV-ga Tigraygu laba qodob oo muhiim ah oo warkaasi ahaa
wuxuu sheegay heshiisku inuu sugayo mustaqbalka durugsan ee qoomiyadda Tigreega uu yahay mid ballan qaadaya oo xuquuqdeeda siinaya. waxa kaloo sheegay heshiisku inuu ku yimid cadaadis ka dhashay dagaalka iyo cadaadis ka dhashay beesha caalamka, inuu labada ku yimid mid walbana uu ballan qaadayo xuquuqda iyo madax banaanida qoomiyadda waxaan u jeedaa ismaamulka qoomiyadda Tigreega. maanta sidoo kale IMF-tu wargeyska reporter oo Ethiopia ka soo baxa wuxuu sheegay in wargeyska la yiraahdo Reuters ay ka soo xigteen afayeen u hadlay IMF-ta International Monetary Fund inuu sheegay in deeqdii maadaama waxay ciwaan uga dhigeen maadaama oo Ethiopia soo dabooshay ama ay laabtay beejkii dagaalka waxaan tixgelinaynaa deeqihii si loogu fasaxo weyne soo dhaweeyeen. waxa kale oo isaguna jira heshiiska si uu u socdo weli mas'uuliyiintii ka socday xagga TPLF-ta iyo xubno kale oo Ethiopia xaggeeda ka socdaba inay la bari ku kulmaan baa la rajaynayaa xagga Kenya. taliyaha ciidanka sidoo kale waan ku sheegay saraakiisha Ethiopia ee ciidanku maanta waxay ka wada hadlayeen qaabkii heshiiskan loo meel marin lahaa. heshiisku markaa guud ahaan markaad eegto haddaan dhowr waji u kala saarno sababaha loo ilaalinayo waxaad moodaa reer galbeedku waxbay rabaan. waxay rabaan Ethiopia maadaama oo Abiy uu ka dhawar adeegay dagaalna dhacay waxyaabo fara badan labada dhinacba in dhinac dagaalka inta la soo afjaro in la kalifo in Eritrea iyo Ethiopia ay kala fogaadaan. kala fogeyntaasi markaa inay keenayso in Isaias la mataqaana dagaal lagu qaado iyo weerar. dhanka ma garanaysaa waxa kale doonayaan si cad in Eritrea iyo Abiy ay kala dhintaan kana la durkaan, waayo haddaba ififaaladeedii way muuqataa. waxay markaa aad moodaa inay ka hortagayaan in nidaam ay xiriir u sii wada lahaan karaan in la soo afjaro. waxa kale oo markaa dhanka haddaan ka eegno xagga dowladda Ethiopia iyo TPLF labada midna dagaalku qaabkii ay rabeen uma dhicin. TPLF-tu dagaalka markay bilaabayso waxay ku tala galeen dagaal muddo gaaban qaadanaya oo Ethiopia ku qabsan karaan bacdama oo ciidamadii iyo qalabkii wax walba haysteen way dhici weyday. xagga dowladda Ethiopia waxay ku tala gashay dagaalku inuu muddo gaaban la soo afjari karo, dhaqaale burbur baa ku dhacay. labada dhinac markaa waxay isugu tanaasulayaan dagaalka in la joojiyo iyo dastuurka in lagu wada dhaqmo yaa dib loogu noqday. markaa Ethiopia dhaqaale la'aan baa ku dhacday, nimankan kalena waa la go'doomiyey. Ethiopiana waxay dareentay hadda dhaqaalihii caalamka iyo xiriirkii caalamka kale ayaan oo dhihina reer galbeed oo dhan oo Ethiopia gacanta ku hayay in afka TPLF-ta uu kaga xidhan yahay iyo heshiiskan qaabka loo meel mariyo. marka si guud markaan eegno heshiiskan caqabadaha ku iman kara waxaa ka mid ah kow heshiiskan waxaan lagu heshiiyey oo wixii ka horeyn lahaa una caddayn oon dadka loo sheegin. marka Tigreeg kuwa fara badan oo activistayaala waxay dalbanayaan wixii ka horeeyay away ilaa iyo hadda Eritrea ciidankeedii waxay ku jiraan gudaha Tigreeg ku jiraan, meelo badan bay haystaan kamayna bixin. waxa kale oo leeyihiin sideen marka hubka u dhigaynaa iyada sidaa tahay ay suuragal ku noqonaysaa. waxa hor istaagaya markaa waxa hoose lagu heshiiyey oo ah Ethiopia waxaad moodaa iyagoon isku dhicin Eritrea si caadiya in lagu qancinayo nimankii TPLF khatar idin kagama imanayso, hubkii baanu ka dhignay, mas'uuliyadda annaga la wareegayna, laba dawladood xiriirkoodii hayna dhex maro. marka assignmentiga Ethiopia ayaa si gooniya u qaadatay oo diidan in kor loo qaado. waxa kale Ethiopia ayna rabin in kor loo qaado oo dastuurka ku hoos jira in la yiraahdo Tigreeg gobolkii laga haystay iyo dhulkii qoomiyadda Amxaaradu ay sheeganayso waa loo celiyay waana looga baxayaa. waxay ka cabsanaysaa taasina inuu qalalaasa sii abuuro iyadii oo la gaarinba wixii in wadanka gudihiisa uu qalalaasa ka abuurmo. ciidamadii Eritrea ku sugan, maleeshiyaadkii kala ku sugan, marka waxaad moodaa in wax la mirmirsiyayo oo qofka qodaxdu markay muddo ay ku fogaato waa la mirmirsiyaa aayar. waxaad moodaa markaa sida dhabta ah ee implementationka ay wax u fulayaan caqabadaha ka hor imanaya iyo waxa mas'uuliyiintu isla soo qaateen in la baahiyo yaa iska hor imanaya.
tabashadan faraha badan iyo su-aalahan dadku ay tabanayaan iyo warsay wax u socdaan waxay ku imanaysaa markaa waxaan laynoo sheegayo wixii ka horreeyo aynaan haynin waxa qarsoon baa wuxuu qeexayaa waxaan inoo muuqda ee aynu aragno waxaa heshiiska qaabka lagu heshiinayo asbaabtii ma muuqato lagu gaari lahaa ciidamadii eritrea meesha kama bixin TPLF dhulkoodii loogama bixin waxyaabo fara badan waxa kale oo dhanka TPLF iyaguna ay diidan yihiin inay sheegaan kuwa badan oo ka mid a qoomiyadda Tigreegu waxay dalbanayaan Ethiopia inay ka go'aan taasi markaa maadaama ay meesha ka baxday iyaduna dastuurka lagu dabaqayaa iyaguna ma rabaan wixii qarsoodiga ahaana dadka looma wada bandhigi karo oo waa qarsoodi waxa la rabaa heshiiskii si uu u hirgalo in Ethiopiana assignmentiga soo qaadatay qaab u saamixi kara oo aan dadkii ku kicinaynin dagaalka la galay qayb ka mid ah haddana dhibaatada kale ee jirta gudihii waxun baaba laga samayn lahaa ama hal la cadaadiye wadanka dibadiisa bay caqabad ka jirta oo dawladda Eritrea halkan soo fadhida oo gobolka Tigray ku jirta oo ciidanka Ethiopiana ay isku milmeen oo ay wada shaqaynayaan qaabkee loo kala badbaadi baa taala waxa ila muuqata marka u dambaysa inayna ka fursanaynin arrintu dhinaca Ethiopia TPLF oo wax la garan karo waxay ku soconaysaa hawshu qaab dadka waqancin kara oo la iska garan karo waxaad moodaa ciidamadii halkaa joogay oo Tigray ka tirsanaa oo qalabkiina haysta inay noqonayaan kuwa haddana Eritrea difaacaya oo iyagoo dirayskii leh oo mataqaana ciidankii Ethiopia kamida oo la sharciyeeyay unba hubkiina sii haysanayaan laakiin ma jirayso iyadii oo la wada hadal oo wax ku dhicin hub inta Tigray laga soo qaada xaggan la keeni taa waa waxa meesha ku qarsoon ciidan sharciyeysan unbay noqon doonaan hubkuna halka unbu sii ooli doonaa mas-uuliyiinta Tigrayga ee gacanta ku haysa haddaba oo ciidanka Ethiopia ka tirsan baana sii hayn doona taas markaa waxa Eritrea la diidan yahay in loo shaaciyo ta kale waxaad moodaa marka u dambaysa inayna ka fursanaynin Ethiopia iyo Eritrea inay madaxa isla galaan waayo wax badan oo la shaacinin ayaa meesha ku jira bacdama markaa Ethiopia ayna qiranin marnaba marmar mooyaane in ciidamada Eritrea wali meesha ay ku jiraan marka waxa ay caybaynina nimankan aniga la hadlaya waxa loo baahan yahay marka ninka Shaaruba Isayaas Afwarqi cidii u sheegi lahayd arrintan wararka soo gaaraya marka waxa la sheegayaa in Eritrea ay gaashanka ku dhufatay ilaa haddana meelaha qaarkood dagaal ay ka socdaan gobolkii Tigray oo ciidamada Eritrea iyo waxaas ay waxaynayaan waxay noqonaysaa marka u dambaysa in Ethiopia ay sharciyeyso ay tiraahdo waka marka dambe la isku dhaco deetana reer galbeedka oo u malmalcunsan Isayaas Afwarqi iyo Eritrea in halka loogu soo dhex dhunto oo dawladii Ethiopia inay cilaamiso dawladdaas inay soo warto meesha dagaal ka dhaco kadibna la isla xoojiyo arrintu marka Isayaas aad eegto iyo mowqifkiisa iyo qowmiyadan xabashida hadda qaabkay u hadlayaan halka waxaad moodaa in arrin ay ka soo salagsalag leedahay heshiiskan marka qaabka uu u fulayo waa qaab dhinacna laga qarinayo dhinacna assignmentigii la qaaday labada qolo mid kasta wixii ay soo ballan qaadeen markaa si official shacabkoodii uguma sheegi karaan qaabka u fulayo waxa la inoo sheegayaa markaa erayo kooban oo hubka dhigis iyo dastuurka iyo in la isku milmo waxyaabahan baa la inoo sheegayaa iyo deeqdi heshiiskan markaa inuu fulo waxay ku xidhan tahay xagga Ethiopia sida ay u cadayso kalsoonida si loo dhiso gargaarkii in la fuliyo qodobadaas waa kuwa la rabo markaa Tigraygu inay ku soo dhawaadaan haddana marka taliyaha ciidanka Ethiopia iyo kan kale is arkaan nidaam waxa la keeni doonaa un dadka waxaad arki doontaa ciidamadii TPLF oo militariga ku jiray oo la leeyahay waa la sharciyeeyay sidaas la isku dhaxgalay marka iyo hubab la isdaba marmarsanayo oo isla gobolka Tigray una oo cidda tarakabaysana ay tahay un mas'uuliyiinta ciidanka ee gobolka Tigray bay noqon doonaa marka guud ahaan heshiiskan waxa ku duugan waa waxa inaga qarsoonay dadku daydeeyaan bini'aadmiga marka wax laga qarinayo ee aqligiisu maskaxdiisu ay ka jawaabi kari weyday su'aasha waa inuu wixii wadwad kan badan waxa keenaya marka waxa la qarinayo ee la suuban salaaxayo oo aayir la duugayo boogti baa la dhayaa Ethiopia marka waxaad moodaa inay rabto arrintan una buuqa kicin hadalkana ee maftu wuxuu ku sheegayaa in durba ififaale ay jirto ififaaladaas waxay saaran tahay ku xidhnaan doontaa afka TPLF ayay dhaqaalaha Ethiopia u soo marayaan
marka taasi loo xaqiijiyo Ethiopia ma rabto caqabado fara badan oo xaggan Eritrea iyo xaggan inay durba isku wada furfurto haddana waxay rabtaa wixii inay hirgeliso kuwan kalena ma rabaan waxay rabaan najita ma taqaanaa risaaltiga ka soo baxaya wada hadalka hal sugo marka wuxuu noqon doonaa wax TPLF qowmiyadda Tigreeguna ay ku qancaan xaggan kalena lagaga qanco taa marka hadda lama sii shaacinayo marka waxay ku dhantahay un xagga Tigreegana hal sugo risaaltiga ka soo baxaya xaggana hal sugo marka waxay noqonaysaa dadku inay inta ka arkayaan waxyaabo ay aaminaan ay hadalkii sii wadwadaan oo kolba meel ay u kacaan bal waxaan eegaynaa marka dambe procedure-ku siduu u dhaco kulankan dambe ee Kenya waxa ka soo baxay lagu dhawaaqi karo qaabka gargaarku u bilowdo isdhexgalku qaabka u bilowdo Eritrea qaabka loo wajaho Ethiopia u wajahdo ma filayo dagaal waxaan ahayn oo kale oo ninkaas meesha kaga baxayo waayo ciidamada kaga dhintay khasaare badan baa ka gaadhay wixii lagu heshiiyay oo hoosana ma garan karno marka qasab waa in Ethiopia marka ay cid u qayshato oo ay cadayso mowqifka ay ka qabtay Eritrea waana qasab in meesha uu iska dhac Ethiopia iyo Eritrea uu ku yimaado haddii Ethiopia ay rabto inay heshiiskan meel mariso waa isku dhac inuu yimaado ama in qaab kale loo xaliyo oo Eritrea loo qancin karo oo gobolka Tigray uga bixi karaan oo loo wada dhan yahay oo kale taasna waxa laga yaabaa Eritrea inay magdhow dalbataba waa suuragal ciidan baa iga dhintay burbur baa igaaday shuruudo badan baa jiri doona marka adigu caqabada wadanka gudihiisa iyo tan kale labaduba in la furfuro ay u baahan tahay guud ahaan marka heshiiskan hirgelintiisu qodobada qaarkood waxay u baahan yihiin waqti iyo kalsooni iyo ficilka ay dawladda Ethiopia ka muujiso iyo reaction ka yimaada Eritrea